madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa war-saxaafadeed uu soo saaray ku sheegay in uu hakiyay awoodaha wasiirka koobaad iyo dhammaan waraaqaha ka soo baxa gaar ahaan xilka qaadista amaba xil magacaabista inta lagu dhameystirayo doorashooyinka dalka. war-saxaafadeedka ayuu Farmaajo ku sheegay in uu talaabadan qaaday markii uu arkay tallaabooyinka iskhilaafsan ee dastuurka kumeel gaarka ah maalmarsan ee uu qaaday ra'iisul wasaaraha kana weecday waajibaadkii loo igmaday xukuumadda ee ahaa ka shaqaynta doorashooyinka iyo guud ahaanba amniga doorashooyinka dalka. waxa uu sidoo kale sheegay in ra'iisul wasaaraha uu qaadanayo tallaabooyin aan laga fiirsanin oo dalka u jihayn kara qalalaasa siyaasadeed iyo mid amni uuna sameynayo isku day ku xadgudbaya xuquuqda iyo mushaaraadka ciidamada qalabka sida iyo awood markaa si khaldan u isticmaalid hay'adaha qaarkood sida lagu sheegay war-saxaafadeedka ka soo baxay madaxweynaha markuu xaqiiqsaday in ra'iisul wasaaraha la tashi iyo wada shaqayn aanu la lahayn madaxweynaha isagoo markaa ku dhaqaaqaya in uu soo saaro go'aano ku keeli ah oo markaa aan waafaqsanayn shuruucda iyo dastuurka dalka taas oo ka dhalatay xilgudasho la'aan ayuu yiri madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. sida lagu sheegay war-saxaafadeedka madaxweynuhu waxa uu xeeriyay qodobadan kow maadaama wasiirka koobaad ee xukuumadda federaaliga ee Soomaaliya uu jabiyay dastuurka kumeel gaarka ee dalka waxaa la hakiyay awoodaha wasiirka koobaad iyo dhammaan waraaqaha ka soo baxa gaar ahaan xilka qaadista amaba xil magacaabista inta laga dhameystirayo doorashooyinka dalka oo ay u xil saaran yihiin gudiyada madaxa bannaan ee magacaaban. labo inta lagu guda jiro xaaladan hay'adaha kala duwan ee dowladdu waxay sii wadayaan howlaha ay shacabka u adeegayaan ee markaa lagama maarmaanka u ah socodsiinta howlaha xukuumadda sida waafaqsan qodobka 102 ee dastuurka kumeel gaarka ee dalka oo si cad markaa u qeexaya in wasiir kasta uu isagu mas'uul ka yahay howlaha wasaaradiisa ayna tahay in lagu tixgeliyo iyagoo markaa aan ku dhaqaaqi karin xilka qaadis iyo xil magacaabis inta laga dhameystirayo doorashooyinka dalka. sidaa daraadeed waxaa lagu dhiirigelinayaa dhammaan hay'adaha ay qusayso howlaha doorashooyinka in ay dardargeliyaan si waafaqsan jadwalka doorashooyinka ee la faafiyay ayaa lagu yiri wareegtada ka soo baxday madaxweynaha. ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaan wali ka jawaabin hadalkan ka soo yeeray madaxweynaha. labada nin ayaa isku khilaafay kiiska Ikraan Tahliil oo ahayd sarkaal ka tirsan NISA oo la la'yahay.